wasiirka wasaaradda difaaca xukuumadda federaalka Soomaaliya Abukaate Xasan Xuseen Xaaji iyo taliyaha ciidanka dhulka Generaal Maxamed Biixi ayaa si wada jira sababtun ugu sameeyay ciidan ka tirsan ciidamada commandoska Gorgor oo noqonaya dufcaddii 8aad oo tababar ku soo qaata dalka Turkiga. ciidankan ayaa horay waxa ay tababar wadaniyadda iyo daljacaylka iyo waliba ciidannimo ku qaateen gudaha dalka, waxaana tababar intaasi ka sii dheer ay ku soo qaadan doonaan dalka Turkiga. runtii maalmahan ilaahay wuxuu na siiyey farxada iyo guulo isdaba joog ah. sababtu waxa weeye maalin aan ciidan sii dhoweynayno tababar u socda iyo maalin aan kuwa soo dhammaystay aan soo dhoweynayno. taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya Generaal Maxamed Biixi ayaa la dardaarmay ciidankan saakin la sabootiyey. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed oo nabada oo xasilooni heshan nabadeed oo barwaaqo ah, ciidankeedoo dhisan oo dhammaan difaaca xuduudaha ku filaada in ilaahay la gaarsiiyo, Soomaalina ilaahay gaarsiiyo. ciidankan maantay baxaya oo aanu sagoontayno runtii waa ciidan aanu ku faraxsannahay, waa ciidan aan jecellahay, waa ciidan tababar 3 bilooda ku qaatay kulliyadda Turkistan kadibna waddanka Turkiga tababar ku soo qaadanaya. waxay isugu jiraan saraakiil xigeen iyo askar dabley. waa ciidan aan rajaynayno waxay soo barteen inay dalka u soo baranayaan, dalkana gelinayaan insha Allah. waxaan idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba ilaahay nabad ha idinku geeyo, tababarka nabad ha idinku soo dhameeyo, adikoo nabada dalkiina ku soo laabta, eheladiinni iyo carruurtiinni adikoo nabada ilaahay ha idinku soo celiyo. annagoo dhammaan bulsho ahaan iyo ummad ahaan iyo ciidan ahaan nabadan Allah isku kaaya soo celiyo, ilaahayna waddankayaga ha noo soo xasiliyo. wasiirka wasaaradda difaaca xukuumadda federaalka Soomaaliya Abukaate Xasan Xuseen Xaaji ayaa u rajeeyay ciidamadan in ay soo qaataan tababar ku filan, waxaana uu kula dardaarmay wadaniyadda daljacaylka iyo difaaca dalkan. maanta waxaan sugootinaynaa ciidamadii Gorgor oo tababar ku qaatay dalka gudihiisa u socdo Turkiga si loo soo tababaro. waxaan u mahadcelinayaa shacabka Turkiga, dawladdiisa iyo mas'uuliyiintooda iyo saraakiishooda siday mar kastaba ay ula garab taagan yihiin dawladdeena Soomaaliyeed iyo ciidamadeena Soomaaliyeed inay caawiyaan, khaas ahaan ciidamadeena Soomaaliyeed inay dhisaan oo noo dhiseen Gorgor oo hadda la ogaaday in faa'iidada ay dalku u leedahay Gorgor iyo guulaha ay soo hoysay. marka waxaan leenahay dawladda Turkiga iyo shacabkeeda waa mahadsantihiin. waxaan kale u sheegayaa ciidamada maanta baxayo waxay heleen fursad malaayiin Soomaaliyeed ay helin. waxaan ka rajaynayaa insha Allah inay si fiican u soo tababartaan, tababarkoodana la soo noqdaan, dalkana ku xoreeyaan cadowga, ilaaliyaan midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed, ilaaliyaan badda, cirka iyo dhulka Soomaaliyeed iyo gobonnimada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan ayaan ka rajaynaynaa. waxaana ka rajaynaynaa in insha Allah ay tababaraan ciidamo kale oo fursad u helin inay aadaan waddamo kale. shalay waxaan qaabilnay ciidamo oo ka imaaday, maantana ciidamaan sugootinaynaa. dadaalkaas wuu soconaya, xiriirka labada dal sidaas u soconaya. insha Allah intaan ka gaarayno ciidan qaran oo ku filan dalkan inuu ilaaliyo intaan ka helayno. fursadan ka faa'iidaystaan idin leeyahay, safar salaama idin leeyahay, ilaahayna nabad ha idinku keeno. midda kale aan idin oranaya waxaa weeye niidin wanaajista. shaqadaad ku jirtaan waa shaqo qaran, waa shaqo markaad aad u niyeysato oo gaarayso cibaado oo ilaahay ajar kaa siinayo. inama alacmaalu binniyaad baa xadiidka u ahaa. niyadaada haddaad hagaajisato, aad ugu talagasho shaqada aad qabanayso inaad qarankaada iyo ummaddaada Soomaaliyeed iyo soo kabashadeeda iyo jiritaankeeda niyadaada aad ku wanaajisato oo habeenkii ku seexato, maalintii ku soo jeedo oo ku shaqayso oo ilaahaygaana aaminto, ilaahay wuxuu ku qorayaa shaqada aad ku jirtaba inay cibaado tahay.
marka shaqo fiicanaad wadaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waa idin garab taagan yahay anagana xukuumad ahaan waa idin garab taaganahay waxaan idin leeyahay shaqo wacan ciidankan ayaa qayb ka noqonaya ciidamada tababarka ku soo qaadanaya dalka Turkiga waana dufcaddii 8aad shalay waxa Muqdisho lagu soo dhaweeyay dufcaddii 7aad oo tababar ugu soo dhamaaday dalka Turkiga